xildhibaan Saacadiyo Carays Ciise Kaarshe ayaa gobolkan Minnesota si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo magaalada Minneapolis ay ku sugneed ayna ka soo qayb gashay waliba xiliyadii 1 Luulyo ee gobolkan Minnesota looga dabaaldegayay xildhibaanada ayaa runtii xafladani ay ka soo qayb galeen fanaaniinta reer Minnesota iyo waliba halkaasina ay u badnaayeen dumar aad u fara badan iyadoo runtii fariimo halkaasi ay ugu dirayaan xildhibaanada qaar kamid ah ayagoo buraanburo iyo hadallo qiimo leh halkaasi ka soo jeediyayna hadaladooda waxa kamid ahaa Bismillahirrahmanirrahim waxa sharaf ii leh anagoo dhammaan jaalida Soomaaliyeed ee quruxda badan ee Minnesota inaan si sharaf leh oo wanaag ku jirto aan u soo dhaweeyno xildhibaanada Soomaaliyeed oo federaal member Soomaali kamid ah Saacadiyo Carays Ciise Kaarshe la soo dhaweeyay sida maqlayseen baraamburka iyo really maata iyo sida loo jecel yahay heesa aabaha si loo jeclaa I think torjiga ayaa wada oo calankii aabaha kugu wareejiyay oo ay mataqaana midnimada Soomaaliyeed aabaha nin qaran u ahaa aabaha nin qarana oo ummadda Soomaaliyeed aad u jeceshay u ahaa marka isaga ayaa mataqaana lagu xushmeynaya iyo adiga waxaad gaartay shakhsiyad gabdhaha Soomaaliyeed really waxa uu tahay role model sababtu waxay tahay member of parliament waliba fadhiya qaybta cadaaladda marka waxa weeye mas'uuliyad baa ku saaran oo ka saaran mataqaana inaad gabdhaha Soomaaliyeed 27 member of parliament 235 macquul ma waxaan dhihi lahaa waxa weeye next parliament in la helo boqolkiiba almost sida inaan gaarin wadamada Nordic 50-50 in la gaaro almost waan gaari karnaa haddaan dadaal idinkeeda ku xiran tahay intaas ka bacdi fursadan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto oo aan Soomaaliya baarlamaankeedan aan adoo noo wakiila aan ku dirno baarlamaanku waa golaha sharci dejinta waddanka Soomaaliyeed waxa saaran mas'uuliyad qaali ah ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay nabadda dadka shaqeeya oo waliba dadka isku keena si mataqaana loo gaaro nabadgelyo waarta oo mustaqbal gaarta aabaha Allah u naxariistay wuxuu yiri Soomaali waa inay kala doorataa buu yiri gobonimo iyo gumaysi aabaha Allah u naxariistay marka hadda Soomaali oo dumarkii caaw halkaan fadhisiin iyo kuwa daawanayaba waxa way su'aasha aan halka dhamaas ka wadiina waxay tahay Soomaali waa inaan kala dooranaa qabyaalad iyo qaran kee dooranaa that is the question Somali this is the right time oo aan dooranaa qaran noqono aabaha Allah u naxariistay wuxuu ahaa my hero aniga iyo nin aan jecelahay oo la oran jiray Cabdullaahi Suldaan Timacad Allah u naxariistay those are my heroes aniga personally waxaana ka uriyaa wax kala ma ahan calanka buluuga xidigtaan ka uriyaa calankaas naga wada dhaxeeya dhibaato jirta dhiiga daadanay Soomaaliya anaga waa ka soo horjeednaa anaga waxaan u baahanahay nabadgelyo iyo horumar qof walba oo Soomaaliya qurbaha mar walba waa dhahaa fursad waxaan haysanaa haddii aadan wanaagooda ka shaqeynin oo aad Soomaaliya fadlan haddii aadan wanaagooda ka shaqeynin walaalayaal sharkeena ka xijaabano Soomaaliya way soo noqonaysaa waxaynu u baahan tahay dhamaanta inaan ka wada shaqeyno inaan sameeyno hal Soomaaliya oo qurux badan oo nabadgelyo ku nool waxaan ku gaari karnaa anagoo taa ka shaqeyna waxaan kula talin lahaa MB dacaawas oo soo dhaweysay dumarka Soomaaliya aad baa u maasantiin laakiin haddii aan ka qayb gelin oo mataqaana oo aadan mataqaana Mareykanka ogtiin Hillary Clinton ayaa waagii markii 2008 waxay tough campaign maray la tartamaysay Barack Obama baaqoleenka Obama campaign waxay dhaheen mataqaana bill wuxuu noqday xoogaa yar macnaha inuu ninkeeda moogta Bill Clinton waa nin tough campaigner marka erey etrocaana ayaa waxay tiri if you can handle the heat better get out of the kitchen marka waxaan ka wadaa dumarka Soomaaliyeed hadda runta idin sheego macnaheedu waxa weey haddaadan handle gareyn karin waxaan shaqo culus oo madaxweynaha mas'uul ku saaran iska daa waxaan ka tag marka dumarka Soomaaliyeed hadda rabtiin inaad ka qayb gashiin oo boqolkiiba 30 ku yariye haddii aan ka qayb gal aniga hooyo ay soo korsatay am strong woman waa jecelahay macnaheedu waxaan idin sheegaa haddii aan ka qayb galin oo aadan really aadan noqon force for good macnaheedu hadda waxa waaye ragaan blame gareynaa iyo waxaan wax shaqeynaa ma Janice waxa haysatiin waxa waaye aan ku sixi karno wixii dhac qaladkii dhacay magarad marka waxa weey waxaan idinku ka qayb gala oo walaasheen taageera 27 xilmano baarlamaan woman ku jir taageera aad ka warqabtiin as Soomaali attention siisiin
ودن كالصومالي وحوي يعني نكون مشغولين شخصياتك مدحوينا وين ماذا وبحا هذا ما أنت المدحوينا الصومالي دبسنيسيد وحين كجدك يا وحوي ما بريتول وحي ما ندور مت قبيل كينا مركب كاس الله سبحانه مرتا مركب كيف فكر بدنا وعبدنا كيف فكرنا حول قرن ماذا معناها كرسي كان واوريجا نينكي جانس هلا يا كفريستا قف أيا هيل دونا قف كاسا أن قدرينه كرسي يقيميس على كابلوجا تطبع أسر رفاض دي قدادي صومال كل كان وين أنسكويسنو شنطة قبل كهنجري ما أنت الله بدي كلا تجيس وحين كعو سنة دمانتين إن قلبي جوانا كويسين وده هذا الله وقبل هذا ذاتك الصوماليات التركي جمت قانا الصوماليين الصومالية أنا الصوماليين وحاول قانا مرة باشا ذاتك قبيلة بدنا كنا الصوماليين ذاتك بريتش الصوماليين كنا أنا وقانا مركب وحن كودا هل قبيل مدقنا ذاتك الصوماليين وقوي قلب دقن إيوه ذات كان كونفورت دقن عن كشقين النبت قليل الصومالية ويجريسا ولقين ويجريسا هل كان واحد جوك تحل بانا دينا دولة الصومالية وحين وقب هانتهاي إريتريا محاوي قف بإريتريا وحب بحشا بقول كي 10% of taxi بري تاكسي عشرته بحشا هل كان جوجنا وحالينا هاي معلومة محلية الصومالية محاقبت بارمانك محاقبت أدي محاقبت ودي محاد سميس وين كيف فكرنا مركب وحاوي عن شورتنا نول بإنكم كاغ أنتو يهاي can we do 2% of your income كاغ مسين كرتا أسكري الصوماليات ومتقانا مركو دينتو فيريا think about it مشاركو ذا لله إنه دفاع ودنا ربنا كمورق مركو داوع عمو لقو عيد كورق بيس ماله أنا لا مقل عيد مقل ماله ودن كاس الصومالي أنود يستاجنو حلا ما نبدأ متقانا نظام كان تاجرنا شخص يقوب بحا ونبحا وحين كقعد سنة وحوي الصومالي هالقرب يستاجو ودن كاس قرن كاوسون قنايا معلوم لبوان نح الساجن مركا أرن دولديه نلقات متقانا 1950 نلقات حرن ماذا ونجوهر مرسل يا ما أنت ويلكي ويلكي أبدا هذا إنه كنت أنت سود أفريقيا ليجيس ويلكي متقانا دقح اللي قدلي وعنق يريس متقانا دقح قدلي دقح is that the kind of future we want ask yourself هدار ربتد إنا المهن إهلان صومالي قرحون ونبتجلك وذا النول صومالي أو قرحون أو وذا النول وحدا قبست صومالي أو هرمرجارد صومالي أو مدة وحلقة قبست هدا صومالي جعشاي تاجر ولي أنا الصومالي نقو صومالي جعلو قول صوماليا الله حير النبات دين وحيران شركي حسبنا الله حير النبات دين وحيران شركي حفلة داية كولانكو حاوة وحنبار سياهاي حفلة داية كولانكو حكمات بو حنبار سياهاي وحاكو حرايسا حكمادا لكو بكارين حسوس دير باكو حاين دابان حيسا بادان وحاكو حرايسا حكمادا لكو بكارين حفتي نبادين وحاين دابا اللوغا ديغو مودانيو مرويو ماموليو وحقارات دمان مودانيو مرويو ماموليو وحقارات مدحدا يا شعب كميغارن ماذا شوي انتي ما قشيو انتي من كنغلطال سالان محبيو كالقعالو مليون كبادان مانكم منيو بحيو تقون ما شاء الله قديقاي مارين وذا ديقا سوهو ساري موجد علوس مديقتاي يبيديحداي يوم مانكاي يو قلبيقا سعدي يا محباي مقولو مريا لابو موداني يا مرويو معمولي يا وحقارات مدحدا يا شعب كميغارن ماذا شوي انت ما قشيو انت من كان غلطال سالان محبيو كالقعالو مليون كبادان ماني يو بحيو تقول ما شاء الله قديقاي مرن وذا ديقو سو ساري موجد علوس مديقتاي يا بيديحداي يو مانكاي يو قلبيقا سعدي يا محبوي مقولو يو ناقا ملكيا مريا اللابا ناقا قدون ما في ذي حلدبا iyo soo dhaweyn gaxsanayda beed gacala iyo soo dhaweyn gaxsanayda beed
galiliya farax gundheer gafa saaran yahay galiliya farax gundheer gafa saaran yahay angalastahaba iyo ubax geesahowga hilay xusuusi ku gaaran tahay taya gobanimaad taariikhdu gardaadinahay sood gobay lahayd genyo xildhibaanad gacaaltooyadeenaho genyo xildhibaanad gacaaltooyadeenaho gobay carays ciise gacantaada nooga qabo عذرنا عرايس عيسى كرش عنب سعدي يا عذرنا عرايس عيسى كرش عنب عدون حل ديبان عيسي بدا قوغنتهاي عدكا قوحوك يا العارفين لهوبو وداني عاني يا أبواهان عقيلو وحقالا صوماليني موو عرتاما يو عقيدة وعان عربي يا قارش دير عميو يقين علنك صوماليد عويو وها علنك صوماليد عويو وها أنا عدك ذا تهايون عدك دهناي عرس عيسى كارش عندي قاقتكوها أبوان عانه ciidiisa hooyii calankiisa jecel oo cabiraada maansada aan ciidi ku gaarayn carays ciise kaarshaa caadil ka abuuro curuqdiisa tahay adu aniguna ciisiya sharaf ubax cayn bacayn iyo midabada casuustiyo anigu iyo ciisiya sharaf ayaan kugu cidaadee عندويد با دلي ماتيرين دلك مزاداي وابداني قاو دايي بالي قديرياي عند الله شوعا وكالو دايما لياي والدولة نمادو وحيتاي دادكي هدان يرى دارين سيو وديد وي عدو لقى دوغسودون عدي كو داريني وديد درمادا لقو قمو نباد كو درشوني وديد ننكي دونا يابا درجة قراي gabagabadii barnaamijkaasi xildhibaanada ayaa podiumka lagu soo dhaweeyay iyadoo la dardaarmaysa jaaliyada Soomaalida ee gobolkan Minnesota mar hadal ay ku soo jeedisay oo ay tiri waxaad imaan kartaan wadanka Soomaaliya aniga ayaa idin soo dhaweynaya mid ayaa idin soo dhaweyn kara mana baqi kartaan Soomaaliya wax laga baqi karana ma jirto waa meel safe ah iyadoo runtii ku baaroojinaysay jaaliyada Soomaalida ee xafladda ka soo qayb galay aad iyo aad baan idin jeclahay reer Minnesota aan qiimaha iyo qaayaha iyo waqtiga qaaliga aad ay siiseen ama aad reerihiina iyo shaqadii iyo waqtigiini maxay aad u soo dhaafteen saad ii soo dhaweysaan ma fili karo waxaan idinku abaalgudi karaa adinkoo wadankii ku soo noqdo magaaladii Soomaaliya Muqdisho aan hal idinkugu imaado airportka oo aan idinka qaado adinkoo aan katiifad guduudan idin fidinayo hadduu Ilaahay raali ka dhigo walaalayaal waxaa jirto cabsi badan aad qabtiin oo ah Soomaaliya laguma noqon karo xaqiiqdii Soomaaliya cid walba ku noqon karto cid walbana sida inta ugu nooshin si ka macaan baad ugu noolaan kartiin sababtoo xornimo weyn baa taalo nabadgelyo ayaa taalo isjacayl baa yaalo dadkii oo ku faraxsan inay dadkoodii soo noqdaan oo garabkoodii istaagaan ayaa taalo xaqiiqdii qofkii rumaysan lahaa iyo qofkii isdhihi lahaa qoftaan meesha unba idin wadaa anaa idin dhahayo 100% ku soo dhawaada Muqdisho imaadana anaa airportka idin ku sugaya hadduu Ilaahay raali ka dhigo walaalayaal Muqdisho kaliya ma ahan Soomaaliya meel walbaba nabadgelyo ayaa ka ifayso
isjecel dadkii oo isjecel oo rabaan gacmaha inay isqabsadaan. waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo mid ah inaan arkno. waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo isku caloolsan oo wax dhibaato ah iyo wax khilaaf ah aan ku jirin. waxaan idiin ballan qaadaynaa haddaan nahay xildhibaanadii inaan mar walba ka shaqeyno wanaaga iyo isku imaanshaha iyo isku soo dhawaashaha Soomaaliya meel walba ay joogto hadduu Ilaahay raali ka dhigo. walaalayaal gadaal baa laga haystaa waan burqan lahaa xaqiiqdii waxa idin dareensiin lahaa macaanka ay leedahay wadannimada. waxa idin dareensiin lahaa xaqiiqdii macaanka ay leedahay wadannimo sababtoo meel aan idinka dhehaynin baasaboor itus meel aan idinka dhehaynin aqoonsigiina na tusa meel aan idinka riixaynin oo adinka aad ka tihiin boos waa wadankaaga hooyo meel kale ma ahan xaqiiqdii. walaalayaal 22 sano ayaa tusaale noo ah maanta 22 sano ayaa tusaale noo ah waxa naga burburay iyo waxa naga baaba'ay oo marnaba uu noo soo noqon karin. qofka aqliga leh wuxuu xasuusan karaa maanta caruurta banaanka joogto oo ku dhibaataysan xaqiiqdii. ha fiirinina maanta adinka awoodda iyo quruxda aad meeshaan ku leedihiin gadaal u fiiriya caruurtiina imisa xabsiyada ku jira caruur imisa dhibaataysan imisa ilma aad dhashay lagugu xukumayaa. Soomaaliya cidna kuguma xukumayso caruurtaada daa iskale. cunug aad dhashay ma dharbaaxi kartid lamana hadli kartid xaqiiqdii laakiin gurigaaga hooyo sidaa doontada ka yeeli kartaa ayadoo ay tahay diinteena iyo dhaqankii waalidiinteena nagu soo koriyeen. hadal badan ima hayo farxadii ayaa iga badatay waan idiin mahadinayaa aad iyo aad baan idinku mahadinayaa hobalada aad iyo aad ayaan idinku mahadinayaa idinkana waxaad iga taabateen meel aad iyo aad u fog xasuus aad iyo aad u fogna waa idreensiiseen waan idiin mahadinayaa 100%.
lagu hadaqao iyaga hidahasida igadiyo finana iyaga hagayo lagu hadaqao iyaga hidahasida Thank you.